anigoo la yaaban sida ay reer Carovinia u qurxiyeen uguna xardheen gidaarada magaalada qoraalla bidhaamaya oo ka turjumaya afka deegaanka oo aan marba mid indhaha la raacayo ayaa waxaan mar kaliya ka war helay dhawaaqa durbaan waxaana dhegta la raacay halka dhawaaqa ka imaanayay waxaana ii soo baxday in qalcada weyn ee magaalada ay batay masrax ay ku soo bandhigayeen reer Carovinia ciyaar dhaqameedkooda isla jaanqaadka qoobka ciyaarka caanka ah ee Bitsika walow aan anigu horay u aqoon ciyaarta waxaan u haystay inay uun kaliya tahay ciyaar iska caadi ah balse markii aan qalcada gudaha u galay oo aan indhaha la raacay sida ay barbaartu isula kowsanayeen sidoo kalena isula helayeen jaanqaadka ayaan isri bal weydii dadka deegaanka waxa ay barbaarta magaalada iyo martiduba isla jiibinayaan waxaa la ii sheegay magaca ciyaarta balse ma filayn inay sheekada ciyaarta qarniyo dib u laabanayso waxaan u dhaqaaqay inaan baaro halka ay ka timid ciyaar dhaqameedkan waxaana ka war helay in qarniyadii dhexe deegaanka Salento oo qaybta hoose ee gobolka Puglia ah inay aad ugu badneed caarada nooca loo yaqaano tarantulo taasoo marka ay qaniinto dadka si gaar ah dumarka ay sababi jirtay wareer walbahaar iyo inay galaan xaalad deganaansho la'aan ah sidaas darteedna si looga saaro sunta caarada jirka qofka ay qaniintay waxaa loo garaaci jiray durbaanka tumburi violin mandolin kataarad iyo sembolis oo ah biraha yaryarka ah ee dhawaqooda lagu kabo qalabyada aan soo sheegay dabadeedna qofka ay caaradu qaniintay wuxuu ciyaari jiray ilaa uu si la yaqaan uga doo dhididka oo uu ka daalo sidaas ayayna aaminsanaayeen inuu qofku ku dawoobi karo oo ay sunta caaradu uga bixi karto sheekadii ahayd qofka ay caarada tarantula qaniinto durbaanna loo garaaco qarniyo kadib wuxuu noqday ciyaar dhaqameedka koowaad ee guud ahaan gobolka Puglia gaar ahaan reer Salento waxyaabaha aan la cajabay ee aan feestada ku arkay waxa ka mid ahaa in beeralayda iyo xoolalayda ay meesha keeneen wax soo saarkooda oo ay marka aad wax ka iibsatana ku sheegayaan inaad soo booqan karto beertooda ama xoolahooda si aad u aragto habka loo sameeyo tusaale ahaan mozzarellada oo ay Talyaanidu caan ku yihiin xitaa reer Carovinia waxay feestada ka dhigeen mid qaab ahaan caalami ah oo waxay marti qaadeen fanaan reer Senegal ah oo heesta caanka ah ee Jambo Bwana qaadayay sidoo kalena fanaanada reer Brazil ah oo iyadana shaneemadii hore ee magaalada horteeda dadka ku madadaalinaysay laakiin aniga waxaan aad ula yaabay heerka ay ka joogaan ilaalinta hidaha iyo dhaqanka reer Puglia sidoo kalena ay doonayaan inay u sii gudbiyaan dhaqankaas jiilasha soo baxaya yeelkadeeda aniga waxaan meesha kala soo tagay heesta Beta Jidormi warileen calaacalka waa loo siman yahay oo dumarka af waliba ayaa loogu cataabaa looguna calaacalaa muuqaalkaygan waxaan kusoo gabagabeynayaa su'aasha ah magaaladee Soomaaliya ku taalo oo hidaheeda iyo dhaqankeeda ilaalisa iskabadaa inay soo bandhigtee intaan muuqaalka la idinla wadaagayo waxaan idinkaga tegayaa qayb ka mid ah heesta Beta Jidormi senza paura fino a morire alzate